halkani waa magaalada Maalmo xaafadda Limham maanta waxaan soo gaaray booqasho kooban waxaan ku soo gaaray booqasho kooban oo ku saabsan inaan ka soo qayb galo ama aan soo eego festival dabcan halkan ka dhici doona oo ah dabaaldeg iyo isku imaatin bulsho halkan waa deked yar runtii oo isugu jirta inay isticmaalaan kalluumaysatada iyo dadka deegaankan degan dabcan doomuhu waxay isugu jiraan kuwa casri ah kuwa cusub kuwa yaryar kuwa kalluumaysi kuwa dalxiis nimankan hadda dubnada halkan ku ciyaarayaan mardhow waxaa arki doontaa kuwa kale oo iyaguna raaxaysanaya ama ku baashaalaya xeebta ama badda festivalkan waxaa lagu soo bandhigayaa dabcan dadka badleyda ah runtii iyo badleyda iyo isticmaalka gaadiidka ay isticmaalaan oo ah doomahan aad arkayso iyo dabcan festivalka intuu socdo meel kasta waxaad arkaysaa cuntooyinka kala duwan ee dadka ay maqaayado kala duwan dabcan oo aad iyo aad u kala duwan cuntooyin aad iyo aad u kala duwan oo aan dhihi karno cuntooyinka reer galbeedka dabcan inta aad ila socoto waxaa arkaysaa dabcan iyadoo loogu jiro safaf cuntooyinkaas sida hadda aad arkaysaan halkan waxaa lagu hayaa korof dabcan korof laad dadku sidaasay u baashaalayaan meel kasta cuntaa laga cunayaa waa la fadhiyaa muusigu waa mid caadi ka ah intii aad joogto halkan dabcan cuntooyinka waxaa inta badan lagu soo bandhigayaa gaadiidkan yaryar oo ay saaran yihiin cuntooyin kala duwan waxaan ka marnayn iskuulaynta oo safaf dhaadheer loogu jiro dabcan halkan waxaa lagu hayaa kalluun dabcan halkan waxaa lagu hayaa traditional Irish street food fish and chips cajiib dabcan halkanna waxaa lagu hayaa cuntooyin kala duwan waxaan ka marnayn iyaduna cuntada Afrikaanka dabcan dabcan cuntada Afrikaanka وصفف dhaadheer ayadana loogu jiro dabcan dadku sidaas u fadhiyaan dabcan saasaa loo cunteynayaa maqaayadan way soo jiidatay maadaama ay tahay gabadha keliya Afrikaanka ah ee maqaayadan ama soo bandhigayso cuntooyin Afrikaan aan aragno bal waxa hayso dabcan Afrikaan kaliya maaha cuntooyinkeeda cuntooyin fara badan sambuus ayaan arkaa oo laga keenay ama la leeyahay waa West Africa dabcan kuma sii mashquulayno maadaama ayna soo jiidatay laakiin dadku sidaan ayay chicken ayaan u jeedaa iyadana oo ah American street food marnaba kama xiisaysid dadka iyo waxa la soo bandhigay dabcan dadka iyo waxa la soo bandhigay dabcan
halkan waxaa yaala flesk steak dabcan waa doofaarkii oo steak ah oo ayadana safaf loogu jiro dabcan sidaan idiin sheegay sharaabkan ka marnayn oo aad iyo aad isaguna u shidan dabcan waa sii wadaynaa festivaalku intuu socdo wax kastaad arkaysaa dabcan dadku sidaasay u buuxaan halkan waxaan aragnaa iyadana Isbaaniya ama Spain dabcan oo Shana the Spanish food huh? What heter then? Paella, okay. Nice. Paella waxaa kamid tahay cuntooyinka Isbaanishka dabcan safa loogu jiraa ayadana weli waxaan ku jirnaa baashaalka socodka iyo daawashada seafood paradise ayaan halkaas ugu jeedaa halkanna Thai lunch box ayaan jeedaa isagana dabcan meeshan meel laga xiisaayo maaha intaan ku guda jiro si caadi ah ayaan u dhex marayaa dadka asxaabta igu xiran ma iga daawan doonto barnaamijkan dabcan waxa weeye xaafadan waa xaafadda la yiraahdo Limham waa dadka Swedishka ah meesha ay ugu badan yihiin dabcan dadkii kalena waa ay soo raaceen aniga waa joogaa marka meel kasta halkan waxa waaye dabcan craft beer waa meesha la isku kululeynayo dabcan waxaa jira music iyo cuntoba dadku saas u fadhiyaan jiib intaan ku jirno meeshaan wax walba arkaysaa dabcan cuntooyinku waa kala duwan yihiin maaha kuwa aan soo koobi karno saasaa safaf loogu jiraa safaf dhaadheer carab iyo cajam looma kala harin dadka way soo qulqulayaan dabcan maanta ayuu bilaabay festivaalkan wuxuuna soconayaa ilaa iyo berrito soconayaa waa festivaal cajiiba aniga horta waa ka helay dabcan cuntooyinka iyo siday dadku safaf ugu jiraan qaybo kalaan soo wadnaa oo aan soo duubi doono inta festivaalka uu socdo marka qayb oo hilibka la'aad waa soo bandhigay inkastoo ayada aan gaar uga dhigay halkan laftirkeeda waa maqaayad u gaar ah kalluunka cajiib qaybaha kale ayaan soo duubayaa haddana weli waa joogaa